Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sahra Sirat. Waa walaashiin Muna. Caawa waxaan idiin wadaa dhammaan waalidiinta Soomaaliyeed digniin culus oo ku saabsan daroog cusub oo ku baahaya North America. Daroogani waxaa soo qaatay newska loo yaqaano ABC 13 Miami waxaana ka digay Miami Police Department. Daroogani waxaa loo yaqaanaa flanka. Daroogaasi waa daroog cusub oo loo ekeysiiyey nacnaca loo yaqaano gummy bear. Daroogani waxaa laga helay stateyo badan. Waxaa ka mid ah Illinois oo laga helay 212 case, Florida 477 case. Waxaa kale oo weliba uu ku faafayaa state of Minnesota, Seattle, Washington, Ohio iyo meelo stateyo ka mid ah Canada. Haddaba daroogani waxa uu leeyahay side effect aad u culus. Side effect-giisana wuxuu yahay oo daroogan lagu garan karaa ama uu qofka ku reebi karaa ruuxa qaata hadduu ilmo yahay iyo hadduu ruux weyn yahayba. Daroogani waxa uu leeyahay illusion in uu mataqaanaa ruuxii arko waxyaabo aan jirin, cabsi fara badan, caro saa'id ah iyo mataqaanaa dagaalan. Ruuxaasi wuxuu isu haystaa xaaladda uu ku dhex jiro daroogaasi uu qaato in uu ruux walba ka xoog badan yahay, wax walba uu jajabin karo ayuu ruuxaasi isu qaadanayaa. Wuxuu kaloo leeyahay daroogani in mataqaanaa ruuxa heart rate-kiisa uu zaa'id u shaqeeyo, wadnihiisa inuu zaa'id u shaqeeyo, inuu dhiiga ku karo, in uu keeni karo stroke ama heart attack in uu keeni karo. Wuxuu kaloo keeni karaa keliyaha oo shaqada joojiyaan. Wuxuu yeelan karaa qandho saa'id ah iyo dehydration oo ruuxa ah inuu mataqaanaa jirkiisu ay biyo la'aan camal ay noqoto. Haddaba daroogani loo ekeysiiyey kaandiga wuxuu ku imaadaa noocyo fara badan oo nacnacyada jira nacnac caruureedka ah kuwo u eg ayaa mataqaanaa loo soo sameeyey oo aadan ka garanaynin hadduu baakada ku jiro iyo hadduu bacda ku jiro, aadan ka saari karin nacnacii dhabta ahaa iyo daroogii oo u samaysan qaabkii nacnaca si loogu soo jiido caruurta ama loogu sahlo oo loogu qaldo caruurta ama si mataqaanaa ay caruurta ay u qarsadaan oo loogu maleeyo in uu yahay nacnac. Daroogani lacag fara badan kuma fadhiyo. Waxaa lagu qiyaasaa lacagtiisa ilaa iyo $5 oo lacagta Mareykanka ah in uu joogo. Marka daroogaas indhaha ha loo furo, caruurta ha laga warhayo, dadka aan la aqoonin, caruuraha yaryar in aysan nacnaca ka qaadanin, in ay meelaha iskuulaadka ah iyadoo weliba laga dadaalo oo sharciyo ay ka yaalaan in aan daroog lala soo gelin. Haddana saas ay tahay mararka qaarkood kaysas fara badan waxay ka dhacaan in ilmaha iskuulka cunug wada uu u keena caruurta kale oo qaab loo kala gato ama mataqaanaa caruurtii mid ay og yihiin oo mid u gadanaya oo daroog ahaantii u gadanaya iyo mid aan ogeynba in mataqaanaa daroogaasi si khalad ah uu lugta oo la galo. Haddaba haddii waalidka ay la kulmaan arrimaha noocaas ah ha raadsadaan resourceska caawini kara si ilmaha in ay u helaan rehabilitation in ay u helaan oo ay mataqaanaa ay la xiriiraan ilmaha dhaqaatiirtooda oo ay u codsadaan qaabkii ay ugu heli lahaayeen ilmahaas rehabilitation ama medical attention sidii ay u heli lahaayeen.
ama law enforcementiga ha la helaan caawinaad ha u raadiyaan ilmaha haddii ayba dhacdo in uu mataqaanaa ilmahaagu uu galo gacanta uu la galo daroogyada noocaas ah ee aan kor ku soo xusnay. Allah subxaanahu watacaala dhammaanteen hana wada xifdiyo. waa walaashiin Umu Muna oo idinla sheer garaysay digniintaas. Allah subxaanahu watacaala dhammaanteen hana wada xifdiyo meel alaali iyo meeshii aan joognaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.